bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacna wanaagsan daawadayaal lahaantii baa meel kasta oo aad naga daawanaysa waa mar kale iyo barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta oo toddobaad kasta ka daawataan True Cable TV. barnaamijka waxaa idin soo saartay anigoo Sagal Maxamed Fuxaali. sidoo kale daawadayaal anagoo barnaamijkan idinku soo qabana ama idin keeno marti culus. sidoo kale caawa barnaamijka waxaa igu martiya Dr. Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. gudoomiyaha ugu soo dhaweynaya telefishinka True Cable iyo barnaamijka dhaqanka iyo suugaanta. aad iyo aad baad mahadsantahay Sagal, aad baan u jecelahay True Cable inay xafiiska yimaadaan xarunta, inkastoo marka horeba True Cable ay xarunta dhaqanka ka tirsanayd oo ahayd qaybaha warbaahinta ugu muhiimsan had iyo jeer in la joogo, laakiin aad baan ugu faraxsanahay Sagal, adiga iyo inta kale kula shaqeynaysa farsamo yaqaanada ugu horeeyaan inaad noo timaado maanta. waata Jaamac oo horreyn bal waxaad nooga warbixisaa taariikhda xarunta dhaqanka. xarunta dhaqanka Hargeysa waxa ay soo socotay muddo dheer. runtii dadku waxay dareemaan maalinta xarunta dhismaheeda la bilaabay, laakiin xaruntu waxa ay salka ku haysaa oo mar la bilaabantay fikir ahaan bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa oo 2008 muddo imka 14 sano laga joogo, sanadkii 15aad madaxa la galayo ka bilaabantay magaalada Hargeysa. marka inta hore book fairka waxa la qaban jiray bisha 7aad, laakiin 2014 oo ah imka muddo aynu ka joogno 7 sanadood ayaa xarunta dhaqanka Hargeysa loo dhigay aasaaska oo dhismaha la sameeyay oo meel la dejiyay. marka 7 sano u dambeeyay bay xaruntu xarun ahaan u shaqeynaysay, 14 sanana waxay u shaqeynaysay fikir ahaan. aad iyo aad fikirkan in la sameeyo xarun ganacsi laga dhigo qaybtani, fikirkan Jaamac Maadiga lahaa mise waa fikir loo dhamaa? runtii xarunta dhaqanku waxa ay aasaaskiisu saan ku sheegay kasoo jeeda book fairkana bilowgii hore aasaaskiisa fikirkiisa aniga lahaa, laakiin had iyo jeer waxaa jirta mustambeed dib loogu noqdo oo dadka la shaqeeya oo ah gudida ururka Red Sea Cultural Foundation seeska hidaha dhaqanka ee aan gudoomiyaha ka ahay. waxaa ka mid ah abwaanadeena oo tala la wada leeyahay ba shaqada la qabto dhan ay ku timaada dhismaha marka. laakiin xarunta waa qayb ka mid ah mashaariicdii ay seeska hidaha dhaqanku ay fulinayeen. tan oo kaliya maaha berberana waxaa ka jirta xarunta dhaqanka ee berbera oo hadda la furi doono, dhowaan la xariga laga jari doono. marka fikir ahaan waa fikir la wada leeyahay. aad iyo aad xaruntani waxaa loo sameeyey dhalinyarada kala duwan ee ku kulmaan, ayagoo dhalinyarooyin badan ku kulmaan. sidoo kale xaruntani waxa ay tahay mid iyadu ah dhaqanka. ma jirtaa xaruntani wax u gaara iyadu leedahay? runtii xarunta saad sheegtay magacaysata waa magaca xarunta dhaqanka. dhaqankana maaha waxa meel taagan oo lagu dhaqanku wuxuu isla bedelaa waqtiga, dhaqanku wuxuu isla bedelaa dabeecadda, dhaqanku wuxuu isla bedelaa maxaan ku raday jiilasha kala duwan. aniga iyo adiga dhaqankaygu waa kala kaan. waxaa laga yaabaa fanka iyo heesaha iyo gabayada aad xiiseynaysaa inay aada uga duwan yihiin kuwan anigu xiiseynayo. marka xaruntu waa weel lay leedahay dhalinyaradu. barnaamijyada ka baxaana dhalinyaradu iyadaa ka dambeysa, iyadaa ka fikirta, iyadaa sidii garoon kubad lagu ciyaarayo oo kale. kubadda waxaa ciyaara ciyaartooyga, garoonkuna waxa weeyaan meeshii hirgelinayeen lagu ciyaaro. marka xarunta dhaqanku waa weelka, waa garoonka lagu ciyaarayo, laakiin fikirkeeda iyo taladeeda iyo barnaamijyadeeda iyo shaqadeeda inta badan dhalinyarada iyagaa mamnuuta. waad soo gashay galabta, waxaad aragtaa meel alaaliya meel kasta waxa hoos fadhiya dhalinyaro. dhalinyarada hoos fadhida fasaxna kama qaadato Jaamac Muuse Jaamac, fasax kama qaadato Maxamed Sheekh Dalbar iyo gudida halka wax lagu akhrisanaya sidoo kale weeyaan. marka runtii waxaan had jeer ugu yeedhaa xarunta waa weel ay dhalinyarada Somaliland ku soo bandhigaan hibadooda, ku kobciyaan hibadooda, ku akhristaan wax, ku koraan oo aqoon ahaan ay ku kordhaan. sidoo kale waxa uu sameeyay barnaamij ah inay dhalinyaradu hal-abuurnimadooda ay ku soo bandhigaan oo barnaamijyo u qabataan. barnaamijyadaas ma waxaad u qabataan dhalinyarada imika hal-abuurada imika? barnaamijyada xarunta ka baxaa way kala duwan yihiin. had iyo jeerna waxay la socdaan wadciga kolba markaa taagan. mararka qaarkood siyaasad baa laga hadlaa, mararka qaarkood suugaan baa laga hadlaa, mararka qaarkood ciyaaraha dhaqanka ee naga sii lumayaa laga hadlaa. marka kolba waxay ku xidhantay horta wadciga la taagan yahay, laakiin waxa unug u ah oo aasaas u ah waxa ay dhalinyaradu xilligay ku jirto. marka waa run waxaa jirta barnaamijyo u gaara halabuurka da-da yar oo soo bandhiga hibadooda, laakiin inta badan dadku waxay arkaan
xarunta marka habeenkii wax lagu soo bandhigayo iyadoo midhihii bislaaday la goosanayo. laakiin idinku waydin aragteen oo kamaradiina dhex maraysay xaruntu culayska ugu weyn ee ay ummadda u qabataa waxa weeyaan in ay dhalinyaradu intay wax soo saaraysay ay wax karinayaan inta aanu dherigoo bislaanin inoo keenin inay halabuurkooda meel ay la fadhiistaan oo geedka hoostiisa intay fadhiistaan ku fikiraan, riwaayadda ku qoraan, suugaanta ku qoraan, musiga ku saaraan, soo jeediyaan, inay isu yimaadaan, keligood wada hadlaan, dood qabtaan, habluhu keligood u doodaan, soo bandhigaan, in arrin siyaasadeed laga wada hadloo taagan, soo doodaan, soo diyaariyaan, halkaa yimaadaan oo soo bandhigaan. marka inta badan dadku waxay arkaan bandhiga, laakiin waxa ka dambeeya bandhiga ayaa ka muhiimsan. waana sababta ay xarunta qolalka faraha badan ee kala kaanka ay u leedahay. aad iyo aad jaamaca waxaa jirta dhalinyarada imika samankani inay dhaqankooda badankooda ay ka tallaabayaan, ma jirtaan wacyigelin ay bixiso xarunta dhaqanku? runtii arrinka anigu fikir ka duwan baan haystaayo ul laguma joojin karo inta la karbaasho noqda oo dhinaca u leexda aniga waxay la tahay fikradda ay xaruntuna wadaana waxa weeyaan ummaddani waxay lahayd oo kasoo jeedaa dhaqan aad iyo aad qoto dheer oo qiimo leh in dhalinyarada loo soo bandhigo oo la baraka oo la kala dooransiiyo. haddii aynu dhalinyaradeena u diidno inay gabaygoodii bartaan, haddaynu dhalinyarada u diidno inay muusigoodii bartaan, hadday dhalinyarada u diidno inay tiyaatarkoodii bartaan, dabcan mid qaldan oo meel kale ka yimi baa soo galaya. marka xaruntu waxay qabanaysaa ee ugu weyn ee aan jecelahayna inuu fariintay ka baxdo true cable waxa weeyaan si aynu dhalinyarada wacyigelin u siino. wacyigelintaynu siinana ayaanay noqonin halkaa mara halkaana ka leexda, ha noqoto waxaa quruxda badan baa lahaydeen, waxaa kharibana wuu jiraaye kala doortaydinku. dabeedna biniaadamka weliba dhalinyaradu maadaama ay aada u maskax badan yihiin kooda wanaagsan bay dooran doonaan. haddaydin aragtaan markaydin dariiqaa maraysa waxaydin ku arki doontaan xarunta iyadoo ku yaalaan sawiro ka turjumaya dhaqankeeni. haddana waxaydin arki doontaan aqoonta ab ogaaga ah, cilmiga afka ingiriiska lagu dhahdo indigenous knowledge, sidii aynu tusaale ahaan xidigiskeena u isticmaali jiray, sidii aynu xoolaha marka wanka lagu sii daynayo idaha, sida ninka reer miyiga uga fikiri jiray xilliga roobku da-ayo si aanay iduhu u dhalin iyadoo ay xilli abaara tahay. cilmigaasoo dhan waa cilmi baaba-ay, waa cilmi dadkii loo cayo layidhi waa wax khariban, waa wax gumaysigu ku yidhi waa badownimo, dabeedna ay ka tegeen. haddiise laakiin caruurta la tuso oo waxaa ka mid a ciyaaraheena shaxda iyo leyli goobelida, haddii la tuso caruurteena shaxda iyo leyli goobelidu sida ay qiimaha u leeyihiin inay u fikiraan ay xisaabta u bartaan, ma baran doonaan jesta oo keliya iyo ciyaaraha kale ee dabadda uga imanaya. haddii caruurteena ogolaada inay dhaqankooda iyo ciyaar dhaqankooda ciyaaraan, dee ma ciyaari doonaan jaas kale oo ka duwan oo dabadda uga imanaya. marka xaruntu waxay samaysaa wacyigelintay samaysaa waa mid dadban oo ah ummaddani waxay lahayd hala tuso iyada dooran doonta. aad iyo aad jaamaco dhaqankii hore iyo dhaqankan farqi intee leeg baa u dhexeeya islaan shakhsi ahaan? dee horta dhaqan hore iyo dhaqan cusubi ma jiro. dhaqanku wax isla bedela sidaan ku bilaabay hadalkayga. haddii aynu wixii aynu u lahayn taariikhina soo martay, dhaqanku waxa weeyaan anigu waxaan ku qeexaa qofka bini aadmiga siduu uga jawaabo dabeecadda culayskay ku keenayso. dharkaad sidataa iyo hugaad sidataa waa dhaqan. umaad xidhin oo keliya inaad isku qurxiso ee waxaad u xidhatay markii ugu horreysay inay dhaxanta kaa celiso, inay cadceedda kaa celiso. macnaha dabeecaddu waxay kugu kalifto inaad u hesho jawaab, qofka biniaadmigu jawaab helo. cuntada waa dhaqan. maalin maalmaha ka mid a garow iyo baynu cuni jiray iyo faracad iyo waxa inoo soo go-aya qabantada. maantana cunto kale ka duwan baynu cunaynaa. maaha inuu dhaqankaa hore iyo dhaqankan dambe inay kala wanaagsan yihiin, midba xilligiisiibuu taagan yahay. arrinka kale waxaa ka mid a fankeenu wejiyo kale kaanuu soo maray. waxaa jiray mar aanaynu fanba lahayn, waxa keliya jiray ahaayeen sacabka inaynu tubanno, inaan dadku ismano waqti aan la helin oo reer miyi lahaa. maantana guryaha la joogayo wax laysku maaweeliya baa la doonaya. marka dhaqanku waxa weeyaan sidaan sheegayay waxaa isla bedelaya wadciga taagan. kolba kii dhaqankeena kii wanaagsan inta wanaagsan inaynu la hadhno si aynu waxaa la yidhahdaa ummaddu haddaanay garan meesha ay ka iman meeshay u socotana ma garanayso. adigu haddaadan garanayn dharkan quruxda badan aad xidhan tahay iyo midabyadan quruxda badan aad xidhan tahay inay kasoo jeedaan dhaqan aad ku faanayso aada lahayd, ma garan doontid halkaad u socoto. oo inaad markaas waal gaaban xidhato iyo inaad goonno xidhato kala garan maysid, waayo meeshaad ka timi baadan garanayn. haddiise laakiin sidan quruxda badan aad u dhibsato ood u xiiseynayso waayo meel wanaagsan baad ka soo saartay, markaa waad sii noolaanaysaa. sidoo kale dhaqankii hore ee aynu lahayn waxyaabo fara badan oo foolxun buu lahaa.
iyo sidaa ka mid ahayd, dadka la haybsoocaa ka mid ahaa, gudniinka fircooniga ka mid ahaa, waxyaabo fara badan oo dhaqankeenii ah jiray oo mar wadci lagu noolaa macno ku samaynayay, dadkii u noolaa macno ku samaynayay. dee maaha inuu adiga macno kuu sameeyo. qabyaaladu marbay xeer lahayd oo miyiga lagu kala baxayay, dee maanta uma baahnid. marka dhaqankeena markaynu leenahay maaha inaynu wax kastoo hore oo aynu lahayna ay wada wanaagsan yihiin, wax kastoo cusub aynu leenahayna inay wada qurux badan yihiin. kan imikana wax foolxun baa ku jira oo tahay inaynu ka hortagno, keenii horena wax foolxun baa ku jira. siday ugu jiraan wax wanaagsani keenii hore ay tahay inaynu soo qaadano, kan cusubna inta wanaagsan inaynu ka qaadano. technology-ga inaynu halka ugu sarreysa ka qaadano weeyaan, maaha inaynu idhaahno technology-gu dabadii nooga yimi oo dhaqankeeni maaha geedka hoostiisaynu ku noolaanayna, waanaynu technology-ga halka ugu sarreysa kala. waxaad u fiirsataa sida aynu u isticmaalno baraha bulshada, social media. haddaynu xagga wanaagsan u isticmaalno waa halkaynu aqoonta ka helaynay, waa halkaynu wax isugu sheegaynay, waa halkaynu ku baratamaynay, waa halkaynu ku abuuraynay fankeena iyo fikirkeena. haddaynu sida khariban u isticmaalana inta ugu foosh xun baynu kasoo qaadanayna. marka dhaqanka hore kama xumo dhaqankan dambe, dhaqanka hore kama wanaagsana kan dambe. dhaqanka horena in badan oo wanaagsan oo tahay inaynu haysanaa jirta, dhaqanka imikana in badan oo wanaagsan aynu haysanaa jirta. sida labadaba ay u jiraan in aynu nahay inaynu ka tagnaa. waa tahay xaruntan waxaa soo boqda qurbo joog. qurbo joogtu ma jirtaa waxyaabo badan ay ku arkaan oo la yaabaan? runtii xarunta waxaa aada u yimaada oo way jirtay mar ay qurbo jooga ugu badnaayeen dadka yimaada. laakiin iminka waxaa yimaada caruurta halkan ku dhalatay, iskuulladeena kuwa maaragtay privateka gaarka loo leeyahay iyo kuwa ay dowladdu gacanta ku haysaba aad baa loo yimaada. dadka yimaada ama ha noqdaan dadka qurbo joogta ama ha noqdaan dadkeena inala degani, waxay ka helaan wax aanay meel kale ka helaynin, oo ugu yaraan meelo lagu ururiyay aanay ka helayn. hadday idin soo martaan waa idin tegi doontaan imika ee meesha qolqolka shaxanka la yidhaahdo. qolqolka shaxanku waa meesha art gallery-ga afka ingiriiska lagu yidhaahdo. waa meel lagu ururiyey wixii ummadani ay lahayd in ka mid a, hadday noqdaan weelkii, hadday noqoto maacuunkii, hadday noqoto dharkii la xidhinayay, hadday noqotay kutub qur-aan iyo diinta islaamka oo la qoray 1800 oo ummadani ay lahayd oo dhaqan iyo hiddo u lahayd oo ay qortay. waxaa laga heli oo aad ka heli doontaa ciyaarihii shaxda iyo leeli goobaleeda iyo noocii kale la ciyaaray. waxaad ka heli doontaa, ku arki doontaa koorta oo laga yaabo koorta geelayo in qof kastaba maanta uu garanayo, iyo qubbe laga yaabo aan in yari uun inay garato, ama dhar cag iyo kabo sida kuwa halkaas sare yaalla caynba caynaho laga yaabo inaanay dadka maanta jooga aanay horeba u arag. marka alaabadaas baa lagu ururiyo. dadka inta ugu badan markay yimaadaan alaabadaa way ku arkaan. waxaase ka muhiimsan fikirka xarunta ay dadku jeclaystaan, oo macnaheedu uu yahay iminka qolkaa markaydin gashaan waxaad arki doontaan xisaabo dhaqankeenii ka yimi oo ku sharaxan oo cilmiga sayniska maanta halka ugu sarreeyay haddana kaga jira. marka macnaheedu waxa weeyaan war wixii aynu lahayn aynu u isticmaalo, maaha inaynu museumka unaynu dhigne, aynu u isticmaalo inaynu nolosha caadiga ku celino. ta ugu dambaysa dadku yimaadaan ee ay jecel yihiin waxa weeyaan dhabarkaaga imika waxaa yaala buugaag la qoray fara badan oo la qoray xilligii ingiriiska, kuwa ka horeeyey oo intaanu ingiriisku inoo imanba laga qoray, kuwa ka dambeeyey oo 1960kii iyo xilliga aynu dowladnimadeena tuuray ku jirto, iyo kuwii maanta la qoray. wax allaale iyo wax laga qoray buugaag oo laga qoray ummadan koobi ka mid ah, nuqul ka mid ah ayaa xarunta la keenaa. haddii la waayo isagoo electronic oo PDF ah oo file ah ayaa laga helaya. marka dadku waxa yimaadaan waxa ka mid ah qaybta aad sheegtay ah maxay dhaqan soo doontaan ay ka helaan, qayb jaamacadaha ka timaado oo rabta buuggooda qalin jabinta inay dhaqanka ku sameeyaan oo yimaada, qayb caruuraha iskuulkii ku jirto doonaysa inay dhaqankii ka barato, iyo qayb aqoon u timaada iyo cilmi baadhis oo ugu timaada kutubta halkaa taala. waxa ugu dambeyd idin ka heli doontaan ururin cajalado kuwa qaarkood halkaa yaalaan ku arki doontaan gaalan, iyo kuwa xitaa markii cajaladahan yaryar aanay jirin goobada hay wareeg jiro radio Hargeysa 40meeyadii iyo 50meeyadii lagu duubay. waxa weeyaan inagu waxaynu nahay dad hadla oral society, halka aqoonteenu ku jirto waa cajaladahaas la duubay. marka cajaladaha waxaad ka heli music, laakiin waxaad ka heli scene lady iyo deel lady iyo gabayadii la duubay. waxaad ka heli doontaa dad keligood isu dirayo oo hooyo rabta ilmaheedii oo Sacuudi Arabiya ka shaqaynaya halkay waraaq uga qori lahayd u qoraysa cajalad duubayso oo hooyo waxaan ku soo dirayaa salaan kalkii laabta ka soo goday oo codkiya, waayo qoraal isugu diri jirin, WhatsApp-na ma jirin,
email la isuma direen facebookna maynaan haysanin beriga marka cajaladaha waxaad ka heli doontaa haddii alla idmo marka kuwaasna waa qayb kale oo laga helayo aad iyo aad ugu dambeyn jaamac fariin maxaa u diri lahayd dhalinyarada reer Somaliland dhalinyarada reer Somaliland mid baan u sheegaya xilligoodii baa la joogaa adduunyadani waxa weeyaan qofku ilaahay wuu kugula xisaabtamaya xilliga dhalinyaranimada macnaa maaha xoogaaga oo kaliya inaad ordi karto laakiin xooggii maskaxda waa markay ugu weyn yihiin dhalinyaradana haysataan dhalinyarada markaa waxaan u sheegayaa fursadaha markii hore aanay haysanin ee ah meel ay halabuurkooda kusoo bandhigaan halabuurku maaha oo kaliya ka fanka maaha oo kaliya ka heesaha maaha oo kaliya ka farshaxanka technology-ga ka mid ah robotics-ka ka mid ah hibadaas ku abuuran dhalinyaradeenna ee maanta ka muuqata dhalinyaradii Somaliland ku dhalatay inay aqoonta halkii ugu sareysay ka gaadhay fursad bay idin haysataan fursadaas yaana idin kala mid social media isticmaalkeeduna waa wax aad u qiimo badan laakiin haddii la garto sirta oo ah sida ugu wanaagsan loo isticmaalo marka halkan xarunta waxaan idinku marti qaadayaa inaad timaadaan oo idin abuurtaan muujisaan awoodda abuuritaankiinu leeyahay halkan waxaa idinkaga ballan qaadaya in ay idin heshaan fursadii ay idinku soo bandhigi lahaydeen dardaarankaasaan u sheegaya dhalinyarada Somaliland aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. jaamac muuse jaamac aad baan kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga aad siisay daawadayaal intaasi waxay noogu soo gabagabay barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta oo ka daawataan True Cable TV barnaamijkana waxaa idin soo saartay anigoo Sagal Maxamed Fuuxaaleyntan barnaamijka xiga ku kulmi doono waxaan idin tegaynaa sidaa iyo fi amaanillah